السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي aad baan idin salaamay ma doonaysaa inaad noloshaada wax weyn ka bedesho oo aad suuqa shaqada qiimo weyn iyo qadarin badan ku hesho haddii ay jawaabtaadu haa tahay muuqaalkani waa kaagii laakiin se intaanan bilaabin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like garayso comment-kana aad nagula wadaagto wixii fikirkaaga ee aad doonaysa inaan mustaqbalka ka soo hadalno sidoo kale ha ilaabin inaad ka mid noqoto asxaabta ku xiran kanaalkan aad baad u mahadsantahay intaan muuqaalkan bilaabin waxaan kuu sheegayaa talada ugu dambaysa ama qodobka ugu dambeeya waa midka ugu qiimaha badan dhammaan muuqaalka oo idin talada koowaad ee aan kula wadaagayaa waxay tahay inaad barato xirfad iyo farsamo cusub adigoo sidii caadiga ahayd iskaga wata shaqadaadii ama waxbarashadaadii oo nula jeedo inaad gelinka dambe ama waqtiyada aad firaaqada hayso inaad barato xirfad cusub oo suuqa qiimo sare ka joogta waayo badanka waqtiyada aynu firaaqada haysanaa waa kuwo aad uga badan waqtiyada aynu ku mashquulsanahay waxbarashada iyo shaqooyinkeena maalinlaha ah talada labaad ee aan kula wadaagayaa waxay tahay haddii aad dhamaysatay jaamacaddii oo aanad se weli ilaa waqti xaadirkan helin shaqo kugu habboon ama aad qabato waxaad tahay qofka ugu nasiibka badan sababtoo ah waxaad haysataa waqti aad u badan oo firaaqa ah waxaan kuu soo jeedinayaa inaad 6 bilood ee soo socota aad ku gaadho go'aan inaad barato xirfad cusub oo qiimaha aad suuqa ka joogto sare u kicisa xirfadooyinka aad baran karto waxaa ka mid ah muuqaal duubidda samaynta ama jarjaridda muuqaalada iyo qaar kaloo la mid ah waa shaqooyin ay aad u fududahay in la barto una baahnayn waqti dheer inaad barato laakiinse u baahan inaad keliya moobilkaaga gacanta ama kombiyuutarkaaga uga faa'iidaysato sida ugu habboon uguna wanaagsan sidaa wadeed go'aan ku gaadh 6 bilood ee soo socota oo baro xirfad qiimo weyn u yeesha noloshaada isbeddel weyn ku samaysa ka kanaanta iyo adkaanta ka jirta suuqa shaqada marka ay noqoto dhankaaga talada saddexaad ee aan kula wadaagayaa waxay tahay inaanad gebi ahaanba ku joogsan shahaadada jaamacadda ama dugsiga sare markaad qaadato oo aanad u malayn inay waxbarashadu intaas ku eg tahay waxaan kuu soo jeedinayaa inaad barato farsamooyinka iyo hababka cusub ee looga gudbo caqabadaha nolosha loona sameeyo hal abuur cusub oo qiimo u yeela nolosha inta ku ag xeeran sidaa awgeed waxaan kugula talinayaa inaad wax akhriso sidoo kalena aad la sheekaysato dad iyagu aad ku tuhmayso inay fikir ahaan iyo nolol ahaanba horumar ka gaadheen talada afraad ee aan kuu sheegayaa waxay tahay marnaba ha ilaabin inaad ilaahay ku abuurtay talada u dhiibato markastoo ay noloshaadu adkaatana ha u malayn inay tahay gebagabadii iyo meeshii ugu dambeysay ee aad ka helaysay nolosha talada shanaad ee aan kula wadaagayaa waxay tahay inaad fikradaha ka raadiso meelaha uu buuqu ku yaryahay waayo meel kasta oo uu buuq ka jiro waxaa lagu hadalhayaa dhacdo ama wax hore u dhacay oo aan micno badan noloshaada kusoo kordhinay sidaa awoodeed waxaan kugula talinayaa inaad xalal u hesho dhibaatooyinka jira deegaanka aad ku nooshahay taasina waxay fursad u noqon kartaa adiga noloshaada dambe oo waxay kuu sahli kartaa inaad ka samayso fikir iyo hal abuur cusub oo ganacsi talada lixaad ee aan kuu soo jeedinayaa waxay tahay inaad gebi ahaanba ka digtoonaato meelaha aan ku habboonayn inaad waqti ku qaadato sababtoo ah meelahaasi waxay kuu sahlayaan inaanad haba yaraatay waxbaba ka faa'iidin oo noloshaada wax ay ka dhimaan maahane aanay waxbaba ku soo kordhin sidaa awgeed aad uga fiirso meelaha aad waqtigaaga badankiisa ku qaadato talada ugu dambaysa ee ugu qiimaha badan muuqaalku ee aan kula wadaagayaa waxay tahay inaad gebi ahaanba noloshaada baari u noqoto waalidka iyo cid kasta oo saameyn ku lahayd inaad yeelato aqoon iyo waayo aragnimo kugu filan waayo waxaad la soo noolayd oo ay waqti ku soo geliyeen xilli aad ugu baahnayd iminkana waxaa la joogaa waqtigaad adigu u noqon lahayd baari taasoo kuu sahli doonta inay kuu furmaan albaabo badan kuwaasoo noloshaada aan weligood u furmin sidaa awadeed ha u malayn inay waxbarashadu tahay mid dhammaata waxaan kaaga tegaya qalinka iyo wax akhriska isla ogow mahadsanid